qata culays siyaasadeed oo loo bareeray ee dowladda federaalk ee Soomaaliya wajahaysa wax ka yar 10 cisho taasi oo muujinaysa bilowga dhaliilo cusub oo mugga saameynteeda dowladdu ay dareysan tahay marka laga tago xiisadii ka dhalatay weerarkii bariire oo hadda u muuqda mid yara qaboway iyo arrinta la xiriirta khilaafka u dhaxeeya wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo iyana taagan ayaa haddana waxaa maalmahan aad u badan hadal haynta ku saabsan u gacangelinta dowladda Itoobiya Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo ka tirsanaa saraakiisha ONLF sheekada ku saabsan Cabdikariin Qalbi Dhagax waxa ay soo idbaxday markii ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ay sargaalkan ka soo qabteen magaalada Gaalkacyo maalmo Muqdisho lagu hayay kadibna loo gacan geliyay Itoobiya xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo la hadlayay telefishinka Universal ayaa sheegay in ay khiyaano qaran tahay oo gacan gelinta Itoobiya sargaalka la sheegay inuu ka tirsan yahay jabhadda ONLF waxaana xildhibaan Zakariya uu ka dhawaajiyay in labada gole ee baarlamaanka dowladdu ay kala xisaabtami doonaan arrintaasi noo harmna ninka muwaadinka ah oo halyeeyga ah oo la dhiibay oo loo dhiibay cadow xabashi ah oo dadkii difaaci lahaa dhiibeen ninkaas baan rabnaa xaalkiisa in dowladdu ama xukuumaddu banaanka soo dhigto cidda dhiibtay cidda amarka bixisay cidda ogeyd waa ku sheegay sharcigu wuxuu qabaan qaadayna waxa xeer baa yaala xeerkaasi wuxuu ka qabo khiyaano qaran oo noocaas ah waanu baaraynaa guddi waa loo saarayaa inuu hadda baarlamaanka afkiisa ku hadli maayo Zakariya aan baan hadlayaa mogtahay laakiin waajib saaran weeye labada aqalba in ay arrintaas baaraan laga jiba gaaro cidii mas'uulka ahayna dusha laga saaro khaladkii ay galeen laguna ciqaabtii lagu hayo dowladda Soomaaliya waxaa maalmo laga sugayay jawaabta ku aadan arrintan hase ahaatee taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloorshe ayaa si lama filaan ah arrintan uga hadlay kadib markii su'aalo ku saabsan mowduucan la weydiiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xilli uu ka qayb galayay barnaamij su'aalo weydiin ah oo xalay lagu qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dowladdu wareejisay sida la socotaan ba arrinkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo eedda taagan ayaa ah in dowladdu ay ku xadgudubtay sharciga dalka iyo kan caalamiga sidoo kalena arrintan hoos u dhigtay kalsoonida lagu qabi karo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa weeye 1954 international convention weeye ama xeer caalami weeye inaan loo dhiibi karin qof halas naftiisu halis ku jirto meel dilaysa ama xiraysa ama cadaadinaysa ama cadaabaysa looma dhiibi karo waxa weeye waa uu qabanayaa xeerkaasi dowladda Soomaaliya waxa kale oo qabanaya shacbiga Soomaaliyeed oo u dhiibtay kalsoonidoodii insa maanta loo galwana si dar waxay ku leeyihiin oo 100 qof bay soo deysay Itoobiya de 100 qof oo iyadu gardarro ku xirtay Soomaaliya ahaayeen uma soo deynayeen qof Soomaaliya kale in lagu bedesho maya si kastaba jabhadda ONLF oo war qoraal ka soo saartay sargaalka ka tirsan ee gacanta loo geliyay Itoobiya ayaa waxa ay dowladda Soomaaliya u soo jeedisay ONLF eedeymo Cabdicasiis Ibraahim Xabdokey TV Universal magaalada Muqdisho